أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان الاستنجاء بالحجر. وحو فصل يهي عدينتا كو استنجوشدا بالحجر دغخ لوو استنجوده. qofka yani markuu istinjoonayo sida afdalka ah ee fadliga badan ee wanaagsan waa inuu biyaha iyo dhagaxa labadaba isku daro. dhagaxa iyo wixii lamid ah markii hore inuu saxarada iyo kaadida iyo dhagaxa uu isaga tiro, marka ka bacdina biyaha uu raacsiyo, biyaha isaga dhaqo sida fiican oo dahaarada kaamilka ah ee wanaaga badan ee ajirka badan waa noocaas inuu sameeyo. waxaa kaloo u bannaan inuu biyaha keligii isaga gaabsado, biyaha uu ku istinjoodo. waxaa kaloo u bannaan dhagaxa keligiis inuu ku istinjoodo oo wax biyaaba uusan isticmaalin, iyadana way bannaantay. fasalkan marka wuxuu ka hadli markuu dhagax ku gaabsanayo shuruuduu leeyahy. dhagax bis markuu ku gaabsanayo shuruuduu leeyahay. marka istinjaha oo dhagaxa lagu istinjoonayo wahuwa almusamaa bilmudahiri almukhafif, waxaa lagu magacaabaa mid wax dahiriya oo nijaasta fududeeya. nijaasta ilaa ma zuulin karo, dhagaxu waxbuu fududeeyaa bis. wa ama almaa fa huwa almudahiru almuziil, laakiin biyaha waxaa la yidhaha mudahir muziila, isaga waxbuu dahira waana zuulina, nijaastii si caadiyu u zuulin. marka istinjuhu wuxuu leeyahay arkaan. qofku markuu istinjoonayo arkaanuu leeyahay, yacni waa tiirar laga maarmaana in la helo. marka hore istinjaha mustanji waa qof istinjoonayo horta waa in la helo, waa qofka waxaa la yidhaha shaksiga waxaa la yidhaha mustanji. mustanjan minhu wax laga istijoodana waa in la helo. waxa laga istijoonaya maxay yihiin? waa saxarada iyo kaadida. kan saddexaadna waxaa weeye waa mustanjan fiihi, mid loo istijaynayo. kan loo istijaynayo maxay tahay? waa labada jido ay wax ka yimaadeen, meesha kaadidu ay ka timid iyo meesha saxaradu ka timid. waxaa la yidhaha mustanjan fiihi. mustanjan bihi, mustanjan bihina waxaa la yidhaha wax lagu istijoodo waa in la helo, waa almaa walxajar, waa biyihii iyo dhagaxii. marka arkaantaas afartaa uu leeyahay. mustanji waxaa la yidhaha qofka istinjoonayo. mustanjan minhu waa waxa laga istinjoonayo. mustanjan fiihi waa meesha la dhaqayo, labada jidu mustanjan fiihi. mustanjan bihi waxa lagu istinjoonayana waa almaa walxajar, waa biyaha iyo dhagaxana waxaa la yidhaha mustanjan bihi. arkaantaas horta waa in la helo. marka qofka markuu ku gaabsanayo dhagaxa kali ah shuruuduu leeyahay, oo uu leeyahay biyo ma isticmaalaye dhagax kaliyahan ku istinjoon markuu leeyahay waa in shuruudan la helo. shuruudu ijzaa'i alxajari, alijzaa bimacnaa sixa loola jeeda. shuruudu ijzaa'i alxajari, dhagaxa uu ansixidiisa shuruuddiisii 8 dhagaxu markuu u ansaxayo oo istinja ahaan uu ugu ansaxayo oo dhagax lagu istinjoon karo waa in 8 shardi la helo. 8 shardi waa in la helo. hadda dhagax markuu ku leeyahay sheekhu alxajar, markuu ku leeyahay xajar, dhagaxnimadu shardi ma aha. dhagaxnimadu shardi ma aha. waxaa loola jeedaa kullu طaahir jaamid qaalicin lلnijaasa غayri muxtaram. dhagax kaliya yani in lagu istijoodo shardi ma aha. qorayaad ku istijoon kartaa, qorayaad soo qaadato, baakadaad ku istinjoon kartaa, warqadaad ku istinjoon kartaa. waxaa shardiya laakiin shayga aad ku istinjoonayso ama dhagax ha noqdo ama qoray ha noqdo waa inuu yahay daahir. wax nijaasa isagii laguma daahara qaadan karo. waa kullu daahir jaamid, haddana waa inuu qallalan yahay, wax qoyan laguma istinjoon karo. waa inuu yahay haddana qaalic. qaalic maxaa loola jeedaa? nijaasta waa inuu fujin karo. laakiin haddii dhalo oo kale aad soo qaadatay, dhalo zujaajadii dhalaad soo qaadatay oo daboolan, dhaladiiada waxaad tiri waa ku istinjoona, saxaradii waa kugu sii hallaynay, taas waa kugu hallayn. wuxuu inay fujin karaa caqli, yani caqligaaga markood fiirisid waxa wax fujin karaa la rabaa. dhaladii oo kale haddaad tira dhaladii aan saxaro isaga tirtiri waa sii hallayn un. qaalic waa inuu yahay. waxaa kaloo shardiga hayru muxtaram, wax shareecadu ay xushmaysana laguma istinjoon karo. wax shareecadu ay xushmaysay, maalan xabad rooti oo kale iyo xabad muufaa oo kale iyo kutub cilmi oo kale iyo waxaasoo kale waa xaaraan in lagu istinjoodo. wax sharcigu ixtiraam ka dhigay waa waxyaalaha madcuumul jinnigana waa la mid, sida lafihii oo kale iyo waa jinniga wuxuu cuno. lafaha jinniga ilaahay hilibka u saaraa oo cunto ilaahay uga dhigaa, waxyaalahana laguma istinjoon karo. marka shuruud ijzaa'i alxajar markuu ku leeyahay waxaa la mida kullu shay bimacna alxajar, wax walboo macnihii dhagaxa laga helo. oo maxay tahay macnaha dhagaxa waxa laga helay?
وكل طاهر جامد قالع غير محترم وحول بقى ظاهرة أو جامدة قالعة هذا محترم أنا شرعا أن يكون ضجح وإنه هذا بثلاثة أحجار سدح ضجح وإنه هذا سدح ضجح إنه هذا وشرط لكن أحجار مركز الأولية هي أحجار جمع أحجار وحبا شرط معها ليس المراد عدد الأحجار مراد كثيرة الرجحان تماها بل المراد عدد المساحات مراد كوحوي مسحة سدح قور إنه قارو سدح قور إنه مسح وقارو لكن سدح رجح وكو الله سدح وحبا شرط معها هذا سوق هذا تو رجح أفر يعني مدح له أفر مدح وليه هل مدح قعنت تكون قبستي سدح دي جيسو سوهر سنة مد مرض سيكرت سدح دي جيسو وصح السنجيه وصحيح لكن سدح دقاح كو الله سدح أسير وحبا شرط معه هذا ترسته سدح دقاح لما لها لكن مفهومك وحال يربا عدد المساحات سدح مساحة على الربا سدح مساحة مركز ليس المراد عدد الأحجار بل المراد عدد المساحات مساحة إنه سدح قال الربا هذه دقاح أفر جيس اللي أتسوق قادتid هل جيس قعنتها كو قبستي سدح الجيس وكلانا سدح دي مساحة كدقت فصحوا أن يكون وإنه هذا دقاح بثلاثة أحجار سدح دقاح وإنه النقضة أو أمس ثلاثة أطراف الحجر وكرايس مالك دقاح سدح دي جيس كي كلا قعنتها كويس سدح دي جيس ولو حصل الإنقاذ بدونها دون الثلاثة حتى سدح ذا وح كير ظهارته هبك وحس شيء سدح ولا مرمان سدح ولا مرمان ولقوله النبي هذا الكيس صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار وحديث البخاري الترمذي النسائي ابن ماجه إيو إمام أحمد انتبهوا وريان وليستنجي بثلاثة أحجار النبي عليه الصلاة والسلام حوري قفكم مركو يسنجون أيو سدح دقاحكو يسنجودو ومركي آدم به استعمالي النمو لا هذا الكلام وحكو سابسيه المقتصر على الحجر وقفكم قابسنا دقاح هذا الكلام وحكو سابسيه وأن ينقي وإنه دقوحو هدنا الظهير أيو المحل بوسك وإنه الظهير كرو بوسك دقوحو وإنه محلك إنه الظهير كرو وشرد محلك إنه الظهير كرو وشرد ولا مرمان بحيث لا يبقى وصن ماشا كباق النغنين إلا أثر وحراد ماهني راد كاسو لا يزيله وزن زولنين إلا الماء بيما هني وحكا ليسن زولنين أو مثل صغار الخزف أما جليغا يرير كما هني وحكا ليسن زولين كرين هدي راد يرو بيا إن الله استعماله ما هني وحكا ليسن زولي كرين ماشا وكباق النغضو أما جليغا يرير كا إن الله استعماله ما هني وحكا ليسن زولي كرين راد كاس باق النغضو دب ملها وأن ينقي المحل بوسكي وإنه دوحو والظهير كره وشرطي مركب بوسك محل لجدا ما المراد بالمحل بوسك محل لجدا محل كمحل لجدا الصفحة والحشفة الصفحة ما حيتهي وبريد يعني ماشى ما ينضم عند القيام وقفك مركو فريسته ضبديس ماشى كلا كعيس وكلا وريس مركو استاجنا اسكو تجيس وقرصوميس ماشى سوى حالي اللقاهان صفحة ماشى سوى محل كلولجد إيوه الحشفة ما يتاي وماشي اللي هذه محل الختان لبدا سلولجد محل وأن ينقي دغخ وإنه الظهير أيو المحل بوسكي محل لولجد الصفحة والحشفة وإنه الظهير كرو شردية كلا وشردية السدحات وأن لا يجف وإنه سنقلل النجس نجاسته وإنه سنقلل وأن لا يجف وإنه سنقلل النجس نجاسته وإنه سنقلل هذا النجاسة هذا يقلشه دغخ ما فوجين كرو يوحي دغخ لا معناه سيدي ورقدي او كلا iyo dhagay qoragi oo kala iyo alwaaxi waxyaalahaas oo dhan ma fujin karaan nijaaso haday qalasho markaas waxa waajib noqonaya in biyo la isticmaalo nijaaso haday qalasho لأن الحجر لا يزيله حينئذ oo xilligaas haday dhagax waxba ma tari karo nijaaso haday qalasho haday nijaasa qalashiyo waxa la mid ah sawaa'un jaffa kulluha aw ba'daha nijaasta kulligeed ha wada qalasho ama qayb kamid oo ha qalasho waa isla mid haddii kulligeed wada qalasho nijaastii تعين الماء بيا واجب نقناي هذه قيب كمده أي قلشنا بيا استعمالي مركز لا يحمل استعمالي كرت وأن لا ينتقل
نجسك وإنه سنقورقورن عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه نجاسة مركي سوى بحيث ماشي أي كل عدي ماشي سوى إنسان مرة لبات كقورن نجاسة ويسوى بحدي ماشي مركي هراء أي أصيبتي جارتي ماشي أي كا جارتي وإنسان مرة لبات انت كقورته بوس كلا وإنسان جارن هذه بوس كلا أي جارته بيا استعمال مركز بيا واجب نقرأي بيا أي واجب نقرأي مركز لكن انتقالك غورغوريدا نجاسته أي غوريسو انتقالك هدو يهي بواسطة إدارة الحجر طيحي أد وريجينيسي مركز اسكتريسي صحراء لا نجاسة ماشي واد كغورين موقتها واتره تريد داس أد نجاسة محل كده كغورينيسو هذا لا يضر شيء وحبر دي ما يتاس إلا هو بلغو خصبين موقتها نجاسة محل كده يغوريو بواسطة إدارة الحجر بقى مركز أد وريجينيسي وأد مسحيسي نجاسة بوس كده لغا غوري ولغو خصبين مركز guurintaas laa yaduru shay taas wax dhibi mayso laakiin maxaa la diidi dhagaxaas waa sidadiisa maalin si kale inay ku guurto oo meeshii markii hore ay gaartay maalin meel kale inay gaarto عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه فإن كان المنتقل متك جوري هدو يهي متصلا نجاستي وجورتي وأنا حريرتها كلا جوجو ملا أيضا دار ماشي كوها اللي سنتهي تعين الماء في الجميع ضمان بيو وين هذا استعماشه أو منفصلا كي جوري ومد صعمي ومحريره تعين في المنتقل فقط قيبت جورتي بشا بيه واجب كويه المركب ويشترط أيضا أن لا يتغدع وإنه سنجوجو إن نجسكو فإن تغدع نجاسة ضي جوجو بأن خرج قطعا عدو أصابحي في محل بوسسك للدون وكوكلا للدبعي تعين الماء في المتقدع كجوجوي كل جسبية مركز واجبها وأجزاء وحاوجودها الجامد كي قللنا في غير المتقدع كي أن جوجوينه باقي حيادو استعمال كرتا جامد كي ولا يدرى وإنه سنكسر الدرين عليه على نجسكي آخر متكله نجاستي وإن وحكله أي سندوش وقيمان وحكله هذا الدوش نجاستي وقيم هذان بيد استعمالي ومركا بقى وحي لمتكاهي مركا كما استجون كرتيد هذا واحد دوش وقيمان أيه وحلقة سوريدي كليه عرق ديدك وقفك مركا سحرونا الضوضي هذا ديدك سند ديدكي هي نجاستي اسكو قسمي dhididkaasi waa laga maarmaan qofku inuu dhidido waa laga maarmaan dib ma laha kaas laakiin maxaa la diiday wax aan dhidid ahayn haday nijaastii ay ku qasmaan biyad isticmaali markaas maxay la naska wuxuu ku soo arooray midka khaarijka ah soo baxay ayuu midka ajnabiga ah nasku ma saameynayo daliilku wuxuu ku soo arooray midka khaarijka bis والله يدرى عليه آخر مثل النجاسة وإنه سنكسو الدرين أي نجس مطلقا horta nijaas kale haddii meeshii ku timaado maalan dhiigoo kale ayaa ku qasmay taas ma wala kala qaadayaba biyaa waajibaya mutlaqan muxuu la jeedaa radban aw jaamidan nijaasta meesha ku imaanaysa nijaas qalalan ha noqoto ama ha qoyanaato nijaas kale meeshii ajnabi ka ah hadday timaado hadda markaas biyo umad isticmaali aw daahirka la kala qaadi daahirku hadduu yahay radbun mid qoyan ama daahirka qoyan xataa maxaa soo geli kara walow bibalal alxajar dhagaxii aad ku isinjoonaysay xataa hadduu qoyan yahay qoyaankaas hadduu ku qasmo qoyaanka dhagaxiisii haddii nijaastii uu ku qasmo taabto eberwey markaa waa ka guuri biyaad aadi markaa xataa dhagaxa qoyaankiisu dhibaatuu keeni dhagax qalalana la rabaa oon qoyanayn ow daahir markuu kuleeyahay radbi daahirku markuu qoyan yahu dhibaato leeyahay walow bibalal alxajar dhagaxii aad soo qaadatay xataa hadduu qoyan yahay oo nijaastii iyo qoyaankii dhagaxu ay isgaaraan تعين الماء بيع عينوي مركز أو ظاهر رد غير العرق أن ديد هين ديد كاس ولا اسكع فينا دم لها ديد كاس عفسوا أما هو ديدك وكذا الظاهر الجاف ظاهر كهدو قللين هيك حسات قرور حيار وكله فلا يضر بس دم لها مركز ولا يجاوز نجس كوائنو سنكجد بن نجس كخارج كاي صوبحي وإنه سنكجد بين صفحته وقفك بريديسي هي وحشفته جدنينكيسي حسفه ومحل الختان وماشي اللي جدي رجع ماشي اللي جده أو مقطع علامة له كاسة وحل إلى حشفة صفحنا وحل إلى وما ينضم وح اسكت جاي من الأليين اللي بدأ بريء عند القيام مركز الاستاجو
marka la istaago meesha qarsoomaysa qofku markuu fariistana banaanka imaanaysa meeshaas waxa la yiraahdaa safxa halkaas nijaastu safxadaas waa inaysan dhaafin iyo xashafada maxalul khitaanka meesha ragga laga gudo labadaas waa inaysan nijaastu ka durkin oo aysan dhaafin nijaastu haddii ay safxada iyo meesha gudniinka ay dhaafto tacayan alma biyaha markaas caynoobayo dhagaxii iyo wixii la midka ahaa markaas kuma filla wa an laa yusiibahu najiskii waa inuusan gaarin maa un biyo waa inaysan asiibin oo biyo aysan gaarin hadde biyahaasoo hayru mudahirin lahu aan asagii dahirayn biyuhu hadday wax dahiri karaan waa kuwa la rabo laakiin biyaha la diidayo maxay yihiin waa biyo aan wax dahiri karin oo 2 dhibic iyo 3 dhibic oo kale ah 2 dhibic iyo 3 dhibic waxbay kaa hadlayn maahan waxba ma dahirayso marka maxaa la dooni waa an laa yusiibahu maa biyo waa inaysan gaarin biyahaas oo hayru mudahirin lahu nijaastii aan dahirayn biyuhu hadday ku filan yihiin maxalka inay dahiraan waa sidii la rabay maxaa la diidan yahay meeshii biyihii wayna kugu sii halleeyeen dahaarana kuma filla taas way waxa la diidayo de markaas waa inaad biyo aad raadsatid wey marka hadday wax gaaraanba wain kaana biyuhu haba ahaado dahuuran biyo wax dahiri kaleba ha noqdo ow maayic dareere aakharu kale haba noqdo ama dareere kale ha noqdo bacda alistijmaar markaad istanjootay ka bacdi aad biyihii meeshii ku dhibceen ow qablahu qabla alistijmaar ama intaadan istijoon ka hor waa litanajusihima iyagaaba nijaasoobaayo markaas eberow wa an takuuna alaxjaaru dhagaxdu waa inay ahaadaan daahiratan kuwa daahira waxaa kaloo shardi ah shardiga ugu dambeeya dhagaxdu waa inay noqdaan dhagax daahira waa inay daahir noqdaan dhagaxdu inay daahir noqdaan waa shardi haddii dhagaxda waxaa la mida wixii kaloo aanu kor ka soo sheegaynay ilaa dhagaxu shardi ma ah waa tii aanu nidhi waa kullu daahir qaalic lilnijaasa hayru muxtaram wa an takuuna alaxjaaru dhagaxda lagu isinjoonayo daahira waa inay shayga aad ku isinjoonayso ama qora ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama baakad ha noqdo ama warqad ha noqdo waa inuu daahir yahay falaa yujzi'u ma ansaxayo alistinjaab bixajar mutanajis dhagax nijaasaysan haddaad tidhaah waa ku isinjoon taasi haddee suurtagal ma aha laba nijaasaysan isma dahiri karaan faslun hadakani faasilun mid wax kala saaro fii furuud اlwudu wuxuu u fasal yahay oo fasalka uu ka hadli waajibaadka weysaqaadka waajibaadkiisa qofku markuu weyse qaadanayo maxaa laga dooni oo waajiba furuud اlwudu wa huwa almusamى biاlmudahir alraafic weysaqaadka waxaa lagu magacaabaa fiqhiga istilaaxiisa mudahir xadadka kor yeela xadadkiiyu kor yeeli oo wuxuu uga ixtiraazi marka mudahir alraafic markuu ku leeyahay tayamumkii oo kale booraysiga ilaa carradu marka lagu booraysanayo mudahir raafica ma aha waa mubiixi salaadii kuu banaynaya carra markaad ku booraysanayso mooye xadas ma kor yeelayso wاlmuctamad wuxuu yahay anahu weysaqaadku macquulu lmacnaa weysaqaadka sababta loo waajib yeelay waa sabab macnaheeda la garan karo lianna salaata salaadu munaajaatu rabbiyaa lagula hadli salaad markaad tukanayso ilaahad la hadli iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin aad leeda ilaahu adigaan ku caabudaynaa adigaan kaa kaalmo weydiisanaynaa fadalabu tandiif faduliba waxaa la dalbaday atandiifu liajliha ajli lmunaajaat maadaama ilaahay aad la hadlayso waa inaad isnadiifiso qof wasakhaysan lama ogolo ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku caabudo salaad wa inamaa ikhtasa ara'su madaxu wuxuu ku gaar noqday bilmasxi madaxa waxaa la yidhi waxba dhaqiddu shardi ma ahana marka la weyse qaadanayo ha la masaxo waa lisatrihi qaaliban maxaa yeelay sida qaalibkaa madaxu waa asturan yahay oo dhaqid uma baahna faktufiya fiihi madaxa waxaa lagu kaaftoomay biadnaa dahaarada midka ugu yar oo ha la masaxo un baa la yidhi wakhusat alacdaa'u alarbaca bidalik xibnaha kaleo afarta waxaa lagu gaar yeelay in la dhaqo ha la dhaqaa la yidhi waajib way xibnaha kaleo afarta in la dhaqo liannaha maxaa yeelay xibnaha kaleo afarta waa maxalu iktisaabi alkhadaaya waa booska dembiyada lagu sameeyo ow amase lianna aadam mashaa ila shajara birijlayhi nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam ayaa geedkii ilaahay yidhi ha cunin labadiisa lugoodu ugu socday wa tanaawala minha biyadayhi labada gacmoodna wuu ku qabsaday wa akala minha bifamihi afkana wuu ku cunay wa masa ra'sahu madaxiisana waxaa taabtay waraquhaa geedda caleemaheediina madaxuu ku taabtay marka waa asalkii bini aadamku xibnihii masalkiisiiba uu ilaahay ku caasiyey weeye bini aadamku
فروض الوضوء وسقاتك واجبات كيسو 6 لحو الأول كان ugu horeeya النية النيو كو horta waa inaad niyo la timaado maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inama al-a'malu bin-niyat wa inama likulli imrin ma nawa amal niyo la'aan ansaxaya ma jiro amal niyo la'aan ansaxaya ma jiro niyadu marka waxay iska leedahay xaqiiqatu niya iyo waxa jira xukmu niya iyo maxallu niya iyo zamanu niya iyo kayfiyatu niya iyo maqsuudu niya ayaa jira walaga marmaana qofkii marka horeba niyada inuu ogaado waa arimo ku saabsan xiriirna la leh niyada xaqiiqadeeda maxaa tahay ama macnaheeda dhabta niyada maxaa loola jeedaa niya waa qasdu shay muqtarinan bificli qofku waa inuu shay u qasdo inaad weyse qaadato oo yani weyse qaad waajib aad weyse qaadato waa inaad niyeysato ficilna aad ku darto xaqiiqada niyada saasa loola jeeda qasdu shay muqtarinan bificli fasalka soo socda ayaana dhihi doona sidaas oo xaqiiqada niyadu fasalkaasi uu noo sheegi doonaa waxaa kale niyadu leedahay xukmu niya niyada xukumkeedu maxay tahay niyada xukumkeedu alwujuub waa inay waajib tahay sunno ma aha niyadu oo haddii aad ka tagtid weysadaadiiba ma ansaxayso weysadaadii ma ansaxayso haddaad ka tagtid waxaad niyeysanee rafca alxadath weyse la'aanta inaad iska kor yeesho ama waxaad niyeysanee addahaara can alxadath inaad xadaska ka daahir noqoto marka niyadu waxay kale leedahay maxallu niya niyadu boos laga niyeystaa jirta oo ay degto maxallu niya xaggee way booska laga niyeysto alqalbu booskeedu waa qalbigaa laga niyeystaa waxaa jira zamanu niya goormaa la niyeystaa goorma ayaa la niyeystaa goorka la niyeysanayo waxay ku xiran tahay biikhtilaafi almanwi shayga la niyeysanayo yacni zamanka la niyeysanayo waa awalu lcibaadaat zamanku waa awalu lcibaadaat oo maalan hadda weysaqaadka maxaa ugu horeeya wejiga dhaqidiisa kuwa wejiga markaad dhaqaysid weeye zamankeeda markaad niyeysanayso markaasaad niyeysan weysaqaad waajiba inaad weyse qaadanayso marka niyada zamankeedu waa awalu lcibaadaat ilaa soomka maahane soomka cibaadadiisu waxay bilaabmataa duluuc alfajr soomku goormuu bilowdaa salaada subax markay dhalato uu soomku bilowdaa haddana markaas lama niyeysanayo goormaa la niyeystaa soomka habeenkii soo maha habeenkii yaa la iska niyeystaa qabla duluuci alfajr marka waa laga hormaraa soo maaragtid soomkii waa laga hormaray soomka intaan ka ahayn waxaa la niyeystaa awalu lcibaada cibaadadu markaad bilaabayso salaadda markaad xiranayso aad niyeysan weysaqaadka markaad wejiga bilaabayso ayaad niyeysan kayfiyada qaabka loo niyeysanayo takhtalif biikhtilaafi almanwi waxay ku xiran tahay shayga aad niyeysanayso hadda waxaanu joognaa weysaqaadka qaabkee loo niyeystaa weysaqaadka dee waxaa loo niyeysan rafca alxadath inaad xadathka waxaa loola jeedaa waa weyse la'aantii ku dul saarnayd weyse la'aantii inaad iska baabi'inaysaad niyeysan ama waxaad niyeysan addahaara can alxadath ama addahaara lisalaat inaad salaad u dahaaro qaadanayso nidaamkaas waxaa la niyeysanayo niyadu waxay iska leedahay maqsuud ulajeedada laga leeyahay maxaa sharcigu waajib uga dhigay niyo hala niyeysto maxaa sharcigu waajib uga dhigay sababta qasadka laga leeyahay waxaa weeye waa tamyiizu alcibaada can alcaada waa dhaqanka oo caadada iyo cibaadada in la kala saaro ilaa mararka qaar waxaa dhici karta qofku inuu wejiga iska dhaqdo gacmaha iska dhaqdo lugaha iska dhaqdo asagoo ula jeeda nadaafad oo aan cibaado ula jeedin marka weji dhaqidan inaad cibaado ula jeedo maxaana tusinaya waxaana tusinaya niyada soo maa niyada marka sababta shareecadu u waajib yeeshay waxaa weeye dhaqan iyo cibaadada in la kala saaro oo xibnahaaga inaad yacni nadaafad iyo caado ahaan aad ula jeedid dhaqidooda iyo inaad cibaado weysaqaada ula jeedid maxaa noo kala saaraya niyada maqsuudu niya marka waxaa weeye tamyiizu alcibaada can alcaada cibaadada iyo caadada in la kala saaro alawalu kan hore aniyatu niya wa athani kan labaad gaslu lwajhi wejiga dhaqidiisa niyada marka shuruudna way leedahay u gaara shuruuddeeda waxaa ka mid a islaam qofka wax niyeysanaya oo weysaqaad niyeysanaya ama soonka niyeysanaya ama salaada niyeysanaya waa inuu muslim yahay gaal niyo kama ansaxayso horta marka hore waa inuu soo islaamo waxaa kale niyada shardiya atamyiiz qofku caqli waa inuu leeyahay
قفنا عقل لهين قفتي مجنون كاي والنا فهم إني يسنكر عرور كصغير كحد التمييز أن تضبطنا ولجارين أو عقلي إنه كلجي وحنا كلجي وحبو كلجي واستنجود ولي أنجارين وعقلي جالس أنجارين النية إستجنا كأن سحميس وحكى له شرط العلم بالمنوي وحد النية سليس وين أقوان ولاده مثلا ويسقط أرتين نيست يصير له ويسقط وين تقال وحكى له شرط التباعد عن المنافي واحد نية كهر إيمانها وين تكفوقات وواحد نية واحد ديدا يجرى مثلا واحد لا ويسقط النيستي هذانا إسلام نمدي يتكبح هذه والعياذ بالله مرتد نقط ده مرتد نمدي إسلام نمدي يتكبح هذا يوسقط النيسن وواحد ديدا شغايسكم الله واحد نية كهر إيمانها وين هذا لا إيمان وحكى له شرط عدم تعليق قطعها بشيء نيدنا وين هذا الشرط كحر وده ترى وسقاد النيستي مركو هبل مركو يماذا النيستي وسقاد ما انسحيس عدم التردد في قطعها وين هذا كشك النية جوينتير ومثلا هذه الصلاة دي وكلا أدنيست لكن أترى هذانا مكبحها صلاة مسوى سوتها ما انسحيس صلاة دي وكابري وحيل التردد النيو ما يستقبلها يعني وحكى له شرط تحقق المقتضي قلت waxa keenay weesaqaadka sababta aad u weesaqaadanayso waa in aad xaqiiqo ay ku noqdaan maxaad u weesaqaadan sababtan u weesaqaadanayo waxay tahay weesadiina iga burto weesada burideedu waa inay xaqiiqo ku tahay inay weesadu ka burto markaas niyadu ayaan sixi kartaa laakiin adoo shakisan weesatalo ma weesa qabtaa mise ma weesa qabtid kalma hubtida iska niyeyso oo weesaqaad ma ansaxayso waa inaad hubto horta inaadan weesa qabin مركز كبعدي أي النية الصحيح كون نقني نية مركز كبعدي الصحيح كون نقني الثاني كاللبات غسل الوجه وجه قد قد يسيو وحكلو شرط ركن اللبات أما فرض كاللبات واجب كاللبات وإن وجه قفك ونقه ده وجه هدي قيب كمذا هل دبع الله كده قيب كمذا هدو كتغو ما أنصح يوسقات كيسي وجه حد كيسي وحوي هو ما بين منابت شعر رأسه ماشى مضحة تنتو أي كسر دلته وتحت منتهى لحيته لفتا لف جريدة اللي راه هوستيد لفتا جريدة وجركو تمها جركو ماشى أي كسر دشانه لفتا هوستيد مضحة تنتي ماشى كبر لابنس انت برهان دولك انت سويج اللي راه وما بين أذنيه بلع أنا وحوي لبدا دقود انت ودحيس وجهك انت اللي راه لبدا دقود انت ودحيس dhirin kana waxa weeye meesha tinta madaxa ay ka bilaabanayso ilaa laftaas oo laf gareyda la yiraaho garku uu ka soo dhasho timuhu garku ay ka soo dhashaan intaas waa inaad dhaqdo intaas hadii hal meel oo kamid ah hal dhibac oo kale hadii ka qalalan tahay weesadaadi ma ansaxay marka wajiga waxa kamid ah xuduudaha aan sheegnay timaha ku dhex jira xadka wajka timaha ku dhex jira wajiga kamid yahay inaad dhaqdo waa waajib ظاهر وباطن مثلا تنت اللي راح حاجبينك فمنه حكمه شعور الوجه كالحاجبين تنت حاجبينك اللي راح وكله حاجبينك وحوي وتنت لبدا اندود ككوريس لبدا اندود كركوده تنت سارن حاجبين اللي راح والاهداب الاربعه وحوي تنت بارركيده يعني عندها بارركوده تنت يركا عندها بارركوده افرتاس اهداب الاربعه اللي راح اينا وين ادقدو تنتاس دقدو الا حدودي سودمي وجهي ku jiraan سودمي وجهه والشاربين واللمد شاربك isagana waa lamid والعدارين waa lamid isaguna cidaarka tinta yartaa way meeshan ka dhalanaysa cidaarka isagana waa lamid فيجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة ظاهر يا باطن tinta waa laga dhaqi allati korkaas oo تحت شعور tinta hoosteeda maqaarka waa la dhaqi وإن كففت تنتاس حدود وجهك سوى شيء هو فربضت هذي دونته لأنها من الوجه وجهك كم تاعي الثالث كان سدحات غسل اليدين لبضع قعمود بقيد دو مع المرفقين لبضع حصول معقود على لدغو رغنية فرضك واجبك سدحات وإن لبضع قعمود لدغو إلى حصول لدغو وإنت واجبك كاقد عيو واجبك انتو كاقد عيو إلى حصول لدغو لكن محا السنة إن يعني وسقاتك كر لو سي ديريو محايل النبي صلى الله عليه وسلم
ummadiisa wuxuu ku tilmaamay inuu nuurkoodu uu gaarayo meesha weesada